geesada iyo waxyaabaha ay ka qoriyaan aan eegno iminka wararka ugu dambeeya ee dhanka suuqa kala iibsiga haddii aan eegno kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ay ciyaarahan ka doonayaan kooxda kubadda cagta ee Everton. Colin Dagba ciyaarahanka lagu magacaabo ay doonaysaa marka la eego kooxda Everton iyadoona markaan Janaayo doonaysan ciyaarahanka da'da ee PSG difaacana ka dheelaa ee Colin Dagba ka soo qaadato Marco Silva ninka lagu magacaabo ayaan la hubin shaqadiisa tababarnimo ee kooxda kubadda cagta Everton balse haddii suuqa jilalka ee Janaayo uu sii joogo kooxdan waxa uu doonayaa inuu la soo seexdo ciyaarahanka lagu magacaabo Colin Dagba oo ka mid ah difaacyada da'yarta kooxda kubadda cagta ee PSG. Thomas Tuchel ayaana ciyaarahankan Faransiiska ciyaarannada da'doodu ka yartahay 21 sano jirada u ciyaaray aanu ku soo dirin shaxdiisa xilli ciyaareedkan ayuuna sidoo kale ka mid yahay inkastoo xilciyaareedkan laga soo dalacsiyay qaybta labaad ee PSG waxa ciyaarahankan uu door muhiim ah ka qaadan karaa kooxda Everton oo sida uu aaminsan yahay tababare Marco Silva inkastoo kursigiisaba uu liqliqanayo. dhanka kale haddii aan eegno kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelona kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ciyaarahan ay dabcan ku loolamayaan marka la eego waana ciyaarahanka lagu magacaabo Ilmas ciyaarahan lagu magacaabo ay ku dagaalamayaan Napoli ayuu ciyaarahankan u ciyaaraa waxaana uu ka ciyaaraa qadka dhexe marka ciyaarahan qadka dhexe ka ciyaara ee Barcelona iyo waliba kooxdan kubadda cagta lagu magacaabo Real Madrid ee ku dagaalamayaan waana kooxaha waaweyn ee cimaaliqooyinka 47 kulan ayuu ciyaaray Fenerbahce xilciyaareedkii hore marka la eego isagoo 2 sano ku qaata halkaas balse xilciyaareedkan ayuu dib ugu soo laabtay Napoli 2019-2020 Luka Modric ayaa kasii duqoobaya kooxdan Real Madrid waxaana uu arkaa Zizou bedelka saxda ee ciyaarahanka Croatia Luka Modric. dhanka kale haddii aan eegnana Manchester United waxa ay markaan raacdo ugu jiraan ciyaarahanka qadka dhexe ee hore u soo maray kooxda Rome Miralem Pjanic ayaa ka mid ah xidigaha kooxda kubadda cagta Juventus ugu muhiimsan inkastoo xilciyaareedkan la aaminsan yahay inuu yahay kiisii ugu dambeeyay ee magaalada Turin gaar ahaan garoonka Allianz Stadium. ciyaarahankan 29 jirka ayaana laga yaabaa inuu ka dhaqaaqo mar kale Italian Serie A. Calcio Mercato waxa ay qoraysaa in kooxda kubadda cagta Juventus dalabyo ka helaysa marka la eego kooxdan kubadda cagta ee Manchester United waxaa ka dhaqaaqay Marwan Fellaini iyo waliba Ander Herrera welina bedelkooda ma hayso. Declan Rice ciyaarahanka lagu magacaabo ayuu aad u xiiseynaya Mr. Ole Gunnar Solskjaer balse Miralem Pjanic ayaa ah ciyaarahanka ay u arkaan in uu buuxin karo booska ee banayaan Miralem Pjanic iyo waliba Ander Herrera ciyaarahanka lagu magacaabo. dhanka kalena kooxda kubadda cagta ee Arsenal waxa ay markaan doonayaan ciyaarahan qadka dhexe ka ciyaara ayay markaan soo qaadanayaan iyadoo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Scunthorpe United ciyaarahankeeda Joy Dawson uu aad u xiiseeyo Mr. Unai Emery. Michael Dawson ciyaarahanka lagu magacaabo oo 16 jir ah ayaana sidoo kale Tottenham Hotspur bartilmaameed waa marka leego balse ciyaarahankaasi ayuu doonayaa Mr. Unai Emery in uu ka soo qaato kooxdaasi. Gabriel Martinelli, Reiss Nelson iyo waliba Bukayo Saka ayuu haystaa marka leego daa'irkan ayuu doonayaa mar kale in uu ku soo daro shaxdiisa Mr. Unai Emery. dhanka kale haddii aan eegno warar kale ee suuqa kala iibsiga ugu dambeeya kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur waxa ay mar kale soo celinayaan xiisii ay u qabeen ciyaarahanka qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee Sporting Lisbon Bruno Fernandes ayuu mar kale doonayaa Mr. Mauricio Pochettino inuu ku laabto 25 jirkan ayaana wacdaro ka dhigay marka la eego xilciyaareedkii hore qaaradda Yurub xilciyaareedkan 10 kulan uu ka soo muuqday 7 gool ayuu sii marayaa durba 5 kalena caabiye ayuu ka noqday marka ciyaarahankan xilciyaareedkan wacdaro ayuu ka dhigayaa 2019-2020 Christian Eriksen ayaa la hubin mustaqbalkiisa kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur waxaana Pochettino uu doonayaa in ciyaarahankan uu ka soo qaato kooxda Sporting Lisbon. wargeysada iyo waxyaabaha ay ka qoriyaan ay ahaayeen